waxaa habeenkii xalay magaalada Boorama lagu qabtay habeen suugaaneed loogu magac daray habeenka jacaylka iyo dareenka jeelka barnaamij suugaaneedkan ballaaran oo ay soo qaban qaabisay akaademiyada dhalinyarada ee Adkow abwaan Yaxye Cabdi Cali Yaxye Yeebaash ayaa halkaasi ku soo bandhigay suugaan kala duwan oo la xiriiray dhiirigelinta dhalinyarada iyo kuwa kale oo la xiriiray arrimaha jacaylka gudoomiyaha akaademiyada Adkow Anyaale Cabdiraxmaan Ibraahim oo barnaamijkani daafuray ayaa ka waramay waxqabadka akaademiyada Adkow iyo waxyaabaha ay dhalinyarada u qabtaan sidoo kalena kula dardaarmay in dhalinyaradu ay soo abaabulaan barnaamijyo tayo leh oo bulshada wax u tari kara marka gobolada Soomaaliya way ku dheeyeen mar walba ururka Adkow Academy wuxuu aasaasan yahay dhowr shay baan ila wadaagi doonaa wuxuu aasaasan yahay akaademiyada horumarinta cilmiga Afrika Adkow Academy loo soo gaabiyo waa kor u qaadida akhriska iyo qoraalka dhiirigelinta hal-abuurada da'da iyo waxay ka shaqeysaa shan qodob haddaan idin maro waa kor u qaadida akhriska iyo qoraalka dhiirigelinta dhaqankeena suuban ee ku arkaysaan barta dhaqankeena suuban waa ka xagga ku xaqan markaan madar walba qabanayno waxa ka muuqda qaybtii dhaqanka qaybtii kaydinta hidiya dhaqankeena suubanaa taariikhi iyo cilmi baarid aan ku soo sameynay gobolada Soomaaliya ha ugu horeyso sayda meelihii laga asaasay Adli Baayar ilaa Sanaag oo ay joogaan ansaartii iyo waxaan ku dhahaa marka mar walba akaademiyada Adkow waxay ku heelan tahay inay bulshada Soomaaliya ka qabtirto barnaamijyo tayo leh oo caawid arkaysiin hal-abuur da'da Yaxye Yeebaash inoo martiyahay waxa kaloo waxaan ku dhahaa ma aha barnaamijyada aan qabanno noocan mid walba waxa sameynaa laba barnaamij ka xusaya dadka mar walba dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland ag taagan oo ugu horeeyo wasiir Cabdiwaaxid Cabdiqaadir Cabdiraxmaan iyo agaasimaha guud howlaha guud iyo guriyeynta Muxtaar oo mar walba maxaan ku dhahaa maanta naga soo gaari waayay howlo xagii kubadda bilaamay caasimada Soomaaliland ay ku mashquuleen marka mar walba iyaga laftigoodana iyagoo jooga iyo iyagoo muuqanba cidii gaar dhalinyarta ugu xidhan waan u hambalyeynaa si guud Mareykan jooga oo Axmed Daad Cawil la yiraahdo Axmed Daad Cawil Jibriil oo naga soo codsaday barnaamijka uu la socday intuu maxaan ku dhahaa barnaamijyada qaban uu la socday waa qof active mar wuxuu naga codsaday inay joogaan maxaan ku dhahaa 600 oo dhalinyaro marka 600 waa dad maxaan ku dhahaa badankeena cibaadaysta oo sidaan wajiyada ka wajiyada nuuraya marka waxaan u ducaynaynaa muraad buu leeyahay inuu muraadka Ilaahay u fudaydiyo Allah u fudaydiyo gudagalkii barnaamijkan iyo bartankiisii waxaa hadal ka qaatay abwaan Yaxye Yeebaash oo halkaasi ku soo bandhigay suugaan kala duwan oo xiiso badan waa kuwan qaar kamid ah suugaantii abwaanku halkaasi ku soo bandhigay waqtiga iyo ayaamaha dhibani way dib badan yihiin dheef iyo wanaag iyo qol kale way dirdiran yihiin kolbaad geediyada dhahdaayaa ku dalandoosha kol kalena dhexdeeda tidhaayaa hadhiman sheega imtixaanka rabbi baa duldhigay duniyada mideede barashada intay ruux dhig wacan kuugu dhakab siiso qalbigaaga goortuu ku dhago ama se ruuxaaga kolka uu u dhaadhaco bug iyo dhunta iyo laabta ayuunbaa dharaar aanad filan kaa dhufsanaysaa qofkaad ku daashay 3 sano 4 sano 5 sano wada socotee oo credit-kii yara kaaga dhamaaday hadduu doono ayaa waxa suuragala maalmaha ka mid baad kusoo toostooy iyada ama isagoon garabkaaga joogin moogtahay waa nolosha asaasa haddii dumarku iyadigu ammaanaya marka haddii dumarku dhowr kale yihiin dhoocil iyo gaari dhedigaad u tahay raalliya dumar dhabeeshoode dheehaagu Soomaaligu dheega ku hayaaye xishood hooya kugu soo dhaqdaa dab u falaysaaye dhudhumbaad haween dheerti iyo bari iyo dhiidhiiye dhaqankaagu diin buu wataa garashada dheere asturnaantu waa kuu dhar iyo sidadka diibsoone dhaashigaagu waa daacad iyo dhaxalka diimeede hadalkaaga ruuxii dugtaa wuu la dhacayaaye nin dhigaaga cayn kula ahoo dheegsan baad heliye rajadaadu yay u dhimantaydan dhega beeshay
ugu dambeyntii waxaa munaasabadani ka hadlay Xamse Cumar Guujoog oo ku hadlayay magaca afka dhalinyarada Somaliland oo ka soo qayb galay barnaamijkan waxaana uu halkaasi ka soo jeediyay hadallo u badan isku xidhnaanta dhalinyarada iyo midaynta dhalinyarada Somaliland. markayteedaan u gelin waxaan rabaa inaan marka hore u mahad celiyo adkow shaqo wacan bay qabteen marka labaadna inaan si guud ugu mahad celiyo reer Boorama oo runtii si qurux badan noo soo dhaweeyay markii aan magaalada nimay laayimig mana aha markii koobaad runtii wax looga bartay reer Boorama waxaan rabaa inaan ka idhaahdo 4 qodob oo dadka kale horta ay kaga duwan yihiin waa marka koobaad magaaladan Boorama waa magaalo aqooneed oo runtii marka jaamacadda la sheego iyo jaamacadaha kale ku yaala waa magaalo aqoon loogu soo hagaago waana magaalo isdhexgal badan uu ka jiro ballan ilaalinta reer Boorama anigu caawa lambar 1 baan siiyay barnaamijyada aanu qabanno waxaa filaya qolyo badan oo reer Kiisaaba halka joogeen barnaamijyada aanu qabanno marka la yidhaahdo 6 barkaa la qabanayaa waa la soo socdaa aynu dadkii yar sugno iyo u kaaliya 9 habeenimo bay bilaabmaan laakiin caawa in time-kii ballanka la qabtay waa mid kale oo iyaduna aan runtii ku xusayo Ahmed Diriya Ciltire Raya TV magaalada Boorama.